xukuumadda dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa maamulka Puntland ku eedeeyay inay ku xadgudbeen jiritaanka maamulka Hirshabelle kadib shir jaraa'id oo maanta magaalada Jowhar ku qabtay wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta Hirshabelle xildhibaan Abuukar Xasan Maqaney. wasiir Abuukar Xasan ayaa sheegay hadalka wasiirka wasaaradda cadaaladda maamulka Puntland inuu yahay mid gaf ku ah maamulada Hirshabelle galmudug iyo koonfur galbeed. shirkan jaraa'id waxaan rabnaa inaan uga jawaabno anoo ku hadlaya magaca wasiirada saaxiibada ee ila fadhiya iyo magaca dowlad goboleedka Hirshabelle nin sheegtay inuu yahay wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka Puntland oo ku tilmaamay dowlad goboleedyada dalka ka jira marka laga reebo Puntland iyo Jubbaland inay yihiin dad ducafo ah oo meel ay ka taliyaan aysan jirin. madaxweynaha Puntlandna ku amaanay xaalana meesha uu ka degan yahay sidii villa Soomaaliya oo kale in loogu qadariyo. waxaan dhihi lahaa wasiirka ninka sheegtay xigmo carbeed ayaa waxay leedahay icjaabul insaani binafsihi daliilun calaa sigari caqlihi. qofka oo naftiisa ay cajab geliso oo asaga wax weyn isu moodo ummadda kalena yacni ka dhiga wax yacni daciif ah, taas waxay daliil u tahay calaa sigari caqlihi, caqli yaraantiisa. marka taasi waxay muujinaysaa un caqli yaraanta wasiirkay muujinaysaa inuu iscajab geliyo oo isteedyadii dalka ka jiray oo dhan uu ka dhiga wax ducafo ah oo meel ay ka taliyaan aysan jirin, oo Puntland iyo Jubbaland oo keliya marka laga reebo inta kale ay ducafo yihiin. waxaan rabaa ninka wasiirka sheeganaya inaan u sheego inuu soo barto qowlkii alle falaa tuzakuu anfusakum, ilaahay uu leeyahay naftiina ha ammaanina, war waxba is ammaanina. iyo aayadda kale ilaahay uu leeyahay wallaahu yaclamu almufsida min almuslix, ilaahay asagaa kala og kan mufsidka ee ardada fasaadinayo fasaad ka shaqaynaya iyo qofka muslixa ah. marka inaa is ammaantaba wax macno oo ay samaynaysa yani haba yaraatee ma jirto. marka waxaan dhihi lahaa ninkan wasiirka sheeganaya cadaaladdow inaad is ammaanto oo dowlad goboleedyada waddanka ka jira oo kula mid ka ahna aad xaqirto cadaaladda noocaas ah. wasiirkeeda adaa sheeganaya nooca ay tahay adaa lagaa raba inaad jawaab ka bixiso. intaas haddaan intaas uga baxo, dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waxay sheegtaan inay yihiin hooyadii federaalka, balse markaad fiiriso sida ay madaxdooda ay ula dhaqmayaan shacabka ay maamulaan iyo qaabka ay ula dhaqmayaan madaxdii talada dalka soo qabatay ku meelgaarkii iyo kadibba waxaa yacni kuu soo baxaya wax ka duwan sheegashadaas afka baarkiisa aan dhaafsiisnayn. Ibrahim Ali Nur, TV Universal, Jowhar.